baryahan waxaa soo baxay 4 nin oo youtuber ah oo maaragta ragga iyo dumarka isqaba isku dira. ragga iyo dumarka isqaba isku diraan waxay leeyihiin ninkaaga markuu guriga soo galo taleefankiisi baar haddii aad maaragtay ood aragtay taleefanka markuu soo galo inuu kaa dansado ama password ku xirto ninkaas ogow kulahaa meel ayuu ku maqan yahay. magacyadoodana soo sheegi doonaa. meel ayuu ku maqan yahay, gabar kale soo helay, waxbuu kaa qarsanayaa. qofkaa bili aadan waaye. ninkan ilaahay baa 4 baneeyey. yah 4 ha u banaanaado. naagti raali ku ah lala guursado ma xumo, naagti aan ku ahayna ninka way ka tegi kartaa, ma garat. laakiin niman aa fiirsantiin janaladooda aa ku xiran tihiin waxaan dumar ahayna maba daawadaanba, ragga maba daawadaanba. kadib ninkii aa yimid aa lagu leeyahay taleefankiisa haddaa ka shakiso waxa weeye meel buu ku maqan yahay. muxuu ahayd hadduu kaasoo daaho maxaa dhacay? ruufiyaano caadi aaba noqoteen, reeriyaa dumiseen. inta reer oo madaxiina ku dumaya haddaad ogtihiin saas midna u hadasheen. intaa maslaxa aa ka tali leedana bariis iyo maraq waxaad ku raasatay inaad reero dumisaan ood ilaahay aad ka cabsoonayn. waa la yaabo wallaahi bilaahi tallaahi aad baa una yaabo. fiiri qofka bili aadanka waalidkiisaa la soo hadli karo, arrimo qaasay yeelan karaan oo loo ogolay inay xaaska ogaato. qasab maaha taleefankiisa yarka ay gacanta ku jiro inaan baaro 4 saac uun daba socdo oo isku stresso oo maanta dhan aan daba ordo, ma garateen. yah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha qaaliga iyo ku xiran channelka Naciimo Baad soo dhawaada. walaalahayga aan jeclahay erekal iyo laab maasha allah. inta subscribe-ka ii saartay waa mahadsantihiin walaalahayga, iyo laabta quruxda badan, commentiga quruxda badan maasha allah. haddii subscribe-ka cusub ay soo dhawaada dadka ii saari doono insha allah biidnillah kariim. naanaa ku siiya commentiga hoosta kan hoos u dhigaa midka koraa kaa badan insha allah tacaala. walaalahayga qaaliga ayaan jecla caawa waxaa inii wadaa fiidiyogan cusub oo ku saabsan rag usoo shaqo tegay yah inay ragga iyo dumarka kala diraan ayaa imaadeen, ma garateen. wuxuu ku leeyahay gabadha taleefankeeda haddaad aragto iyadoo kaa daminaysa ama password kaaga xiranaysa ama uun si kuu yara eegaysa waxbay soo walaaqaysaa iyo ogow. shaydaan bay ku noqdeen wallaahi dadki. yah shaydaaman ayay ku noqdeen. gabadhan taleefankeeda waalidkeed baa usoo duubi karo, walaalaheed bay la xiriiri kartaa. waxyaabo qasab maaha ninka ragga aniga taleefankiisa inaan ku mashquulo amaba ma aragta aan waxa arrin kasta oo la kulmo in aniga aan maaragtay aan ogaado qasab ma ahan. hooyada ayaa xitaa mararka qaarkood wax ka qarsanaysaa ku dhashay ee ku soo korisay, ma garat. nin warkiisa badaa. yah ninka hadduu maaragta ka waqtigu imaan jiri kasoo dib dhaco lagu lahaa. hadduu kasoo dib dhaco waxbaa jiray ogow gabaray kulahaa. yah ninka password hadduu taleefonka ku xirtay taleefonka ninka hadduu passwordkiisa ku xirto asagay u taala. ani maxaa iga galay? maxaa ka quseeyo? ilmaheeda iyo gurigeeda iyo naashnaashkeeda kale iyo canjeero duboogeeda ka badnayn ma nin bay ceersan kartaa maanta dhan. labada qof hadday isku kalsoon yihiin oo ay is aaminaan ninkan ragga asagaaba taleefonkiisa halkaas iska dhigaan. hadduu password ku xirto iyo hadduu iska daayo iyo hadduusan maaragta uu dansan iyo hadduu dansadaba haddaanba shaqo ka dhiganin yah nahoy anaa runtii inii sheegaa nin hadduu iridaas ka baxo shirka waaye. hadduu soo galo adaa iskale ilaahay ka sokow. ma nin ayaa celi kartaa? ma wax ilaahay qoray ayaa ma aragta la diidi karaa? waa maya. maanta xabgi biyo ahayd yah oo alla qoray. waa iska qaylinaynaa, waa iska ooynaynaa, waa iska ma aragta istreeseynaa, dhibaatan sheeganaynaa 4 saac dumar haddaan nahay, ma garateen. dad baa ma aragta dadkan usoo shaqo tageen oo rabaan dadka inay kala furaan. yah dee ragga dhan waxaan ku iri naaga way wada qabaan 4 5 4 3 2 1 mid keli ku ah waaba yaryahaba.
hadduu kali ku noqdana miduu la dhudhuumanaya marka adigaba in toosh lagaa daba qaato ma jeclide maxaad ragga Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed stress ugu noqonaysiin oo dadka ugu diraysiin oo afraad ka saacad u leedahay yaa hadduu maaragta uu hadiyad kuu keeno kulaha hadiyad qasab ma aha garashaduna ilaahay baa bixiyo waa wax ilaahay bixiyo ninkan shala marka aad guursanaysid siduu ahaa iyo dabeecadihiisa iyo wixiisa marka la shukaansana ama xiriirka dhexeeya ayaa la fahmi karaa nin hadiyad kuu keeno hadduusa kuu keenin hadduu aamusnaa u dhashay hadduu aamusan yahay intaba dooqaagii uu noqday waad raacday kadib jannadaana daawat waa run wallaahi dadkan waxay sheegayaan nimankaa waxay sheegayaan waa run yaa lagu beenguurin ayaga laftirkooda yaa sirahooda lama ogaan karo gabadha la nool xataa way ka qarsadaan midii haddee rabaan safara aadna intay dhahaan beenahaas ku qabaan simikaar kaloo hadduu rab uu haystaa ma garat uu ka maamulaya yaa uu kala hadlaya oo gurigiisa markuu imaado taleefonka ma aragti dhanba asaga dhanba midka kale ku bedelana hadduu doono tan kale way ogtaa soo maaha naagta ka horreysa qasab waa la ogaanaya nahoyaani xabadii u socdaaye hay soo wicin ule hadduu rabo ma garat hadduu ka baqaayo hadduusa ka baqayo nin raga yahana dee wuu isbaraya wuu isku sheegaya laakiin dadka gabdhaha Soomaaliyeed ee guryaha dhisan ee inta ku xiran daawado gabdho badanaa la sheekaystana sheegtana leeyahay ma aragtaa lagu leeyahay wallahi ninkaas wuxuu sheegaa runtiisa waa nahay waxba kama jiraan reerka yaa lagaa dumin anaa runta ku sheegay taleefanka ninka waxba ku mashquulin haddaba ordin yaa asaga iskiisa ma aragta markuu kaa yaabo oo controlin oo daba soconin yaa oo keer aad siinayno guriga iyo nadaafadiisa ilmihiisa iyo cuntadiisa aad ka fikirto asaga isku yaxyaha xishoonay marka dambe uu leeyahay qoftaan ku jeceshahay ninka marka la daba galo buur iyo balaay isa saara ma garat oo cirka isgeynaya yaa ku soo baxay yaa adiga yaaba kadeed isku furay ka maqan kadeed aan ku haysanin yaad bakarka iska saaraysaa maxaa kadeedkaas ku soo arkay naheedha firii ka dhig ninka ma garat asaga marka dambe xishoonay oo yaxyaxay oo dhahay muxuu ay qoftaan wallahi waa qof baariyo fiican ma sha Allah naaqayla badan cid rabta malaha naa guriga marka la soo galo meeqa saaca socotaa qof bilaadanka wax kasta qabsan karo horta caafimaadkiisa weydii ma fiican yahay maanta maxaa cunta dheh soo fariisa dheh qaylaha ka horgeyn biyo qabow u gee shaah u gee cuntadiisa si kadib sariirta isku wareysto walaalo horta di aa wax qabtid waa maanta sidee wax ka ahaayeen hadda waad faraxsan tahay markaas uu faraxsan yahay moogta ilaa caloosha u buuxisay sariirtan waad geysay uu faraxsan yahay markaas culayski ilaahay saara uu ka dajiyay ma garat markaas asaga ku sheekeynaya oo ma aragtay ku dhahay abay macaan saas isaas ay qabsaday maanta saas isaas ay nin dad soo feereen baa laga yaabaa rag waxa jira banaanka wixii ku qabsado aanan hore ka sheegin oo hadduu dagaal soo galo goobta shaqada laga soo ceeriyo ku sheegaynin haddii dhibaato ku soo dhacdo familkiisa aan ku sheegaynin qasab maaha in la isla wadaago waxyaabahaas waxa la isla wadaago waa un jacaylka jasta jacaylkuna dee kuma xirna hadiyad kuma xirna inuu sariir bedelo kuma xirna inuu fadhi bedelo yaa wax walba adaa ninkaa ka keensan karta xitaa inuu naag guursanin kale uusan haminin adaa ka keensan kara inuu naag fiirin adaa ka keensan kara waa haddaad qaylo ka daysid waa haddaad maaragta biilka lagu siiyo maanta biil layma siinin qaaq aada ku dhiib yaa hadduuse maanta biilku siin berriyo iskugu kaa daraya hadda waxaa laga yaabaa inuu ku tijaabina oo ku fiirinayo baltan iska fiiri oo ku dhahay iimaankaaga dhuuqsatid yaa aad gabar wanaagsan oo fiican oo maasha Allah aad u noqotid xaraga badan aad u noqotid ilaanku soo marsatid gurigaaga hagaagsid uunsi aad na ku siisatid dee asaga ka dhaqaaqeen yaa asaga hee baaba dhaqaaqay hadduu dhaqaaqana anaa runta ku sheegaye oo banaa guursadana haddii aad u adkeysan kartid iskala joog ninkaaga haddaadan u adkeysan karinna jaanta yeeri qalarka ku dhag ifurdheh laakiin nin wuxuu soo dhoodhooba inta fiirsatid ninkaaga ha kula kicin reerkaagana ku dumin yaa reerkaaga dad waxay soo dhoodhoobeen ama aa soo dhegaysatid gabaray ha kula kicin anaa runta idin sheegaayo ma fahanteen telefoonka u dhig bareefada u yaa wixiisa
taleefankaas gooni u yahay dadkiisa asxaabtiisa hooyadiis waalidiintiis dad inay isdirreen dad inay isdagaaleen waalidiintiis dadkiis wixiisu kala xiriiraya waxyaaba badan ku xalisanaya qasab maaha naagle in lagu canayo qasab maaha adi wax la yiri iyo laga sheekeeyey iyo waa lagu yiri waxaa kaaga fiican waxaa hubtid ninkaan naag maalintuu guursado uu banaanka isa soo dhigo uuna kaasoo dhaxaynin ha kontaroolin iska daa walaale faraha ka qaad because haddii kale adaa madaxaaga cimri degdega kugu dhacaay madaxaa iska mashquuline waa waarane fikira galaysaa waa dhibaatoonaysaa ninuu ku maqay naaguu ku maqaya intuu aaday waa sidan waa kan aan leedahay maanta o dhan waa iswaalaysaa ilmiyaa iloobaysaa jacaylkaas dhan maba loo muujiyo gurigaaga markuu soo galo u muuji ninkaaga iyo markaad sariirta la tagtid u muuji jacaylkaaga iyo wanaagga u qabta aboow kan yah hadduu naag labaad kaa doortana dee ilaahay dalaaquu keena waad ka tegi kartaa haddaa u adkaysan karta ninkaagiina oo ilaahay dartiis iskala joogay sidoo shaydaanka iska naaraysina inkastoo maseer aan la celi karin iskala jooga dii kalena waa ka tegi kartaa laakiin si kale inaa reerkaaga ku dudumisid oo tiraahdo janal hebel aan soo fiirsaday ninkaas wallaahi wuxuu sheegaya waa run ninka hadiyad ima siiyo naheedhe baqiilnimada iyo hadiyadda iyo sadaqada oo xaaskiisa siisanaya iyo waajibkiisa waxa waa loo kala dhashaa kama keensan kartid micnaha kama soo baarkiyeysi kartid ma ka dhali kartid adi ina asu ku garta kula soo jeclaadaa wanaagsan adi inaa u garatid daarta hadiyada inuu ku siiyo adiga sii ku bilow bar ama ahayn mooho dee sidiisa ku hayso wuu dhashay yah ha dhihin janal hebelaan kasoo fiirsaday wallaahi ninkaas hebela janalkiisa wuxuu sheegaya waa runtiis been aa lagu sheegaya cad dad waxaa jira aan hadiyadda aanan maaragtay iyo maaragtay waxyaaba banaanka laga keenaayo aanan awoodin oo caanihii ilmaha la diriraayo oo keenaayo ma garatay yah ninaa hadda ka hor waxaa la yiri xamaaliyuu ahaa wuxuu xamaali jiray malmal jawaanada malmalka wax ka culus malaha dhabarkuu saaran jiraa la yiri habeenkii wuxuu ka shaqeeya naagtiisa maysan ogeyn weligeed may weydiin asna uma sheegin shaqo unbuu aadaa unbuu leey ma garato marka malmalka wuu ka qabaysan jira asagoo soo qabaysto dharkiisa kala xirta ayuu imaan jira asagoon qabaysan ayuu dharkiisa caadiga iska soo xirta malmalaa kasoo urta malmal waa waxay maaragtay soomaalida dhaqankooda ilmaha gacmaha iyo sanka iyo u marmariyaan asagoo malmalka uraa gurigiina waxay tiri ninkii daalanaa oo maanta dhan malmal iyo balaayo iyo xamaaliyaa ka culays bad lacagta u keenayo bay waxay tiri riyaa naagaa ka timid miyaa ilaa ilmaad leedahay tiri malmal baa kaasoo uraaya ilmaad maanta dhan haysatay oo malmal usoo marisa miyaa wallaahi intuu saas u fiiriyo malmal hadda culayskeeda ninka qaadi jiraa ama xamaali jiraa yaqaanimo malmal waa aragteen culayskeeda bax ku shubalsaa u qaad ragga ka xamaala dee kaaga sheekeeyaan waa yaabaysaa wuxuu yiri ma anaa saas ilaasay tiri haa wariyaa kale usoo qaad kashaada xagga iga geeyo dhaha naagta adduunka ugu jeclaa uu soo xamaalaya saddexdeedu isdaba dhigo ciil aa ka qabta mayadaa og meeshuu kas keenay dhibaatadoo usoo maray ma ogo marka intaasoo dhan waxaan usoo marayaa dadka isku diro ee guryaha islaamiya dumiyo ma fiicna qasamaahan hadiyad qasamaahan ina alaab maanta la bedelo anaa runta inii sheegaaye adaa wax walba ninkaa ka keensan karta aayarko xataa naagtu guursana u qarsan xitaa kulli adaa ka keeni kartid marka walaaley waxaa inii sheegayaa gabdhow yaa raggiina laynku dirin dhaqda naagiina dhaq nimankiina dhaqda anaa runta inii sheegaayo marka waan salaamayaa walaaleygaan jeclahay sheergareey oo nanaa ku siiya waxaa ciil iga qabtay janalo badan afartooda magacyadooda hadde waa inii soo sheegi doonaa fiidiyooga dambe aan kusoo duubaado ilaa yaraado dad saasaa jira oo dadka isku diro oo muufa ku raadsado oo mar ku raadsado oo dhahaya ninkaagiyo fiirfiir taleefonkiis mashquul iyo hargo u dhexgelina gabadhi iyo tashiish iyo xuquuq ku abuura iyo naagti uu ku kala abuuraya gabdhihii iyo wiilasha ku kala abuuraya gabadha kulaha haddii taleefonkaa disad hadday yeesho war maxaa taleefonkeeda ayadaa
asagana taleefankiisa asagaa haddee nolosha in ka dhexaysa maahan waxyaabaha qaar oo siraha oo dadka u kala duwan inay ogaadaan qasab maayada waalidkeedaa ku xiriiro dadkeedaa ku xiriiro way sheekaysan karaan codod bay isku soo diri karaan waxbay isdhihi karaan arrimo kaloo qaasaa loo sheegi karaa aabaheedaa loo sheegi karaa hooyadeedaa looga sheekeyn karaa dhira hooyo saasaa maanta kan gababa aabihi hooyaas dagaalaha dirrab loo soo duubi karaa ee asaga kale xishoonayso uu la yaabo dhacidiin maxay isku dirreen asaga sidoo kale walaashiisaa aa dhib qabsan karta dhibkii ama lacag si ama isoo calaacashay usoo duubi kartaa qasamaha dumaashida inay dhegaysato ee wax walba ay ogaatay dhegta le saas u taagnaad wallaahi bilaahi tallaa ana runta inay sheegaan mashquul madaxiina ha gelinina firii iska dhiga caadi iska dhiga jawi degan adaa waxna isku abuuri karti waxna iska tirtiri karti walaalahaygaan jecelahay dumar oo dhan ya ani jecelahay raggeena soomaaliyada waan jecelahay waa aabayaashan waa walaaladeena waa wax kaste ya guuleysaa in insha allah sheer gareynaa naadan ka gadiyo